هذا ان نكن فهد ياسين عربي كقرن واحد يجسين هوستاس فيرنيسان عربي جيسي ولا الكيسان اف عربي يا كقرن هوستاس هذا اللي انا إن اخرستان باربع ودي سولوين يا سوغا سيفي عمي سولوين يا سوغا ودي سولوين يا وحكو قرن بايدي اخرنيا waxaan ku wareejiyay qofka okay tan waa tii kala way tan kala Kenya sug tan waa tii labaad suga alla guriga ficnaa guriga si fiican baynu ku tuusilaa mashaakil ma laha intaan ka bilaabaynaa suga tareen baan saaranay tareen alla iga lahado laakiin waa intu tusayaa wuxuu yiri gabadha markii la soo qaaday wuxuu yiri waxa ku wareejisaan qofka wato telefonka eber 6 wuxuu ku sugaa buu yiri markii la dhaafo sarkuusta markaas la yiri hadda ayaan godka jilocow ka baxnay taliye gabadha markaas waa markii la dilay way ogaaliya waan ku wareejinay taliye ambalaastina guriga taliye Yaasiin Faray ayaan dhigay wax gabadhii markii la wareejinaa waa markii laga dhameystay laakiin markii ay nafta laga baxshana waa tana waana idin tusayaa intaan yar haddii aad dhowto la live ka soo fiirinaysaan waa idin ku qabanayaa وإن هذا لو تقول آخرسان أوكي كان كلام أنتو سيا قبل مركي إلا بحين إيكالي وهكذا تنكل وايدي آخرني وأنتو سيا كلام نورتوا وأنتو سيا فيريا هلكا ياسين فري كأر كيسان ووجدان وتلفن كيسي ياسين فري هلكا سكورين جاي هذا لا دور تايدين قليو مركانا يدي آخرني وايدي آخرين دونا هذا لا أنا إيدي آخرين مرك أنا إيدي آخرين تالي وحول بو وانقص مني ويدي دي إني وحشيكتو تالي ويسعودي قبل ده إنتن كبدا إني دمتو لغا يابا ماشكالي إيقصو وعا أيوليه يا ماشكالي وان فاد ياسين ماشكالي إيقصو وعا انت ايسن عيدن كحرونتا اوغانين كسار ميشا waxaan ku soo dirayaa gaari ambulance si farsamaysan u saara ciidanka yeysan arkin okay taliyo igu halay arintaasi halkaas ku taala waa arin cad weeye geed looga gamban maayo marka walaalayaal say wuxuu dhacay ma sheegayna waxa weeyaan nimanka saddexdaas ee gabadha qaaday waxaan rabnaa taliye mahad in uu wada qabad waa ninkii baabuur ku qaaday Ahmed Aadan Ali waa ninkii gabadha agta ka fadhiyay oo ilaalinayay security ahaan agta ka fadhiyay gadaal fadhiisatay iidowna hore u fadhiyay saddexdaasi meeshay geeyeen qofkii gabadhu u geeyeen horta waa inay sheegaan maxaa ku soo haray waa kuwana gabadhii dadka duugay iyo qabrigii iyo meeshii lagu duugay ayaan hayaan qabrigay ku jirta ayaan idin sheegayaa qabrigay saacadan gabadhii taalo qabrigay taalo iyo si loo qaaday gabadha markii ay qaadeen oo ay la baxeen qaabkay u qaadeen ciidamada waran ayaa been loo sheegay oo la yiri wafdi iyo waxbaan wadnaa waxaanu tegaynaa maxaa la yiraahdaa beerta nabad sugidda deegaan ley waa meel ay niisa iska leedahay ay wax ku tababarto gabadhu meeshay ku duugan tahayna waa meeshaas inay inta fahmaan baan rabaa taliye mahad salaad iyo wixii mataqaanaa hawsha ku jira marka gabadha waxa weeye ciidankana ma oga oo waa la wado sidii wafdi wado la galbiyay saddex oo gaari Cabdibilaa ama aqaan iyo laba kale shantaas ma ciidanka ayaa meesha lagu galbiyay gabadhii waa la geeyay meesha markii la dugayna abaar markii joogan soo noqday laakiin askartu aago ka fog yihiin oo de meesha markii ay moogtahay ciidanka xagaas la joojiyaa ma oga ciidanka qoladana qolada ugu waayo waa kuwana way idin siinayaan dadkii qaaday baan idin siinaya walaalayaal Maxamed Xasan waa ninka iyo Macallin Yusuf
meed qaadayaalkii weeye waa nimankii meedkaa qaaday oo geeyey oo soo duugay iyaga waaye ya marka waaya maxamed xasan waa la dalaacsiiyey hoolahan markuu qabtay maxamed xasan waxa weeye taliye ku-xigeenka ee waran ya ayuu ahaa waxaa laga dhigay markiiba taliyaha ee waran ayaa laga dhigay ya marka uu mataqaanaa hadda isla yaasiin faray markii sheekada la qarxiyey wixii la qarxiyeyna wuu qaaday yaasiin faray wuxuu ka dhigay taliyaha baarista ee madaxtooyada waa meeshii madaxtooyada meeshii ahayd ayuu hadda taliye ka yahay ya waa nimanka ee kiiska gabadhan qabriga idin geenaya xalayna waa idin sheegay macallin yuusuf baa idin dhahay waa kana maxamed xasan ka mid ah ya marka macallin yuusufow ya isaga naftiisii halkaasi waa taliyaha waran waaye ya waxaa laga dhigay taliyaha security ka Fahad Yaasiin ee habar Khadiijo walaalayaal dadka ee gabadhan qaba ee dilay oo maanta meelna aan loo maraynin waa farmaajo madaxweynaha ayaa amarkaa bixiyey isku afgarteen isaga iyo Fahad Yaasiin iyo kulanajiis in gabadhaas la khaarijiyay maadaama ay aragtay wararkii ay afartooda ku sheekaysan jireen waa in gabadhna la khaarijaa la yidhi gabadhii si kastaa loo garaacaa la yidhi wax badanba waxa weeye siday iyaga rabeen way ka waayeen horta iyaga yaa dilay Fahad Yaasiin iyo kulanaha horta ka dhamaystay markay ka dhamaysteen ay ka tageen way uga tageen kuwii yaa la yidhi kama tajiya iyagu markay fuulfuuleen ay ka tageen ayaa kuwa kale anaa runteedii sheegay kadib baa ciyaalkiina ay silciyeen waa kaa idin akhrinayay labada ay ku jiraan waxay dhaheen wax walba soo midnay gabadhii inay nagu dhimataa ka cabsay jaan markaasi way u dhamaatay gabadhii markay nafta ka baxdayna ay sheegeenna waa la soo saaray waxaana loo dhiibay maxamed xasan iyo macallin yuusuf waxay geeyeen meesha la yiraahdo beerta nabad sugidda ee deegaanley ee dugsiga tababarka ee nisa waa la wada yaqaana halkaas ayay ikraan ku jirtaa meeshay ku jirto waa meeshaas wakaa in aan fariinta aan idinla qaybsada ayaan rabaa waa ayaan darro weeye in ay uu madaxweynuhu ku lug leeyo awalba shakiga waa jiray wayna ogtihiin sababtana waxaad garalaadiin waa kuwii 3 milyan oo mataqaanaa banaanka soo dhigo oo dhaa 3 milyan qaata ya taas waxay caddaynaysaa inay iga dileen ta labaad madaxweynuhu gorgortan uu galay meeqa gorgortan ayuu galay in mataqaanaa kiiskaas gabadhaas meel la mariyo maxay ku tusaysaa arrintii dhabtu waa tana waxa weeye wasaabkooda afartooda waxay ku hadlayeen ayaa loo dilay gabadhaas wax kale oo gabadha loo iyo kiisaska ay taqaanay intay joogtay mataqaanaa maxaa la yiraahdaa ay sheega engineer Riso ya dadkay shaqaaleysay oo la dilay oo baxay waxaas oo dhan oo la isku aruuriyaa la yirtan waana qarxinaysaa go'aanka waxay ka soo go'ay farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo doofaar iyo kiliya weyne Fahad Yaasiin dadka iyo kulanajiis Yaasiin Fare waa inuu adeegaa wakaa una adeega Yaasiin Fare si rasmiya ayuu ogyahay go'aanka in lagu dilo gabadhaasi meeshay ka timid wuu yaqaanaa kiiskana isaga lagu calaantay go'aankana waxa lagu gaaray in isaga maxaa aad gabadha hoos uga jiray gabadha waxa weeye waa u dhawaa Yaasiin Fare halkaasi oo khalad ka dhacay marka meeshii in beesha Yaasiin Fare waa laga leexdo Yaasiin gabadha meelayaa la yiri hadii kala adna waa lagu meelayna hadii kale gabadhiisaas lagu meelayay saa ula socda marka waxaan rabaa walaalayga Soomaaliyeed adduunka dacaladeeda wax daah nooga jiray walba ma jirin ya waayo waxa cadeynay dawlad oo diidan in kiis gabadhan oo sargaalada in la baaro diidan waxay u diidaysay aan noo cadeynay in beesha iyaga dilay wakaa markii waxay u dileena waxa waaye wasaabkoodii ay dhax gashay afartooda shanaad ay noqotay halkaas ay sheekada ka qaraxday wakaa marka sida ogeed walaalayaal inta ay la qaybsanayo waa intaas waxana weeyaan waa arrin sugan weeye haddii uu na maqlayo mahad salaad ama qolooyinka mataqaanaa ee dambi baarista ah waa in lala hadlaa wadna qabad axmed aadan cali iyo iidow saddexdaasi waa inay caddeeyaan inay Fahad Yaasiin iyo kulanajiis ugu geeyeen godka jilco taas inay caddeeyaan waaye ay kala wareegeen gabadha ya taa dambena maxamed xasan iyo macallin yuusuf waa inay sheegaan wiilashii gargaraacay gabadhaas oo kadibna qaaday ilaa wadinkii qaaday oo geeyay meeshii ya ku hubsaday meeshii marka nimanka weeyay gabadha ka hadalsiya nimankaasina ha sheegaan afartan kabiir waay afartu waxa weeye waa madaxweynaha ku sheegay iyo ninkii kaliya weynaa
dadka go-aanka rasmiga ka gaadhay si xun gabadha waxa yeelay kulanajiis gabadha si xun u yeelaa la yidhi askari igara laada afka soo ninka aniga maaha igu jira godka jilco ninka ii dhex fadhiya wuxuu yiri gabadha kulanajiis si xun u yeelay si xun gabadha isaga si xun u dhaawaa inayba dhimataa loogu talagalay kulanajiis markuu fuulfuulay go-aana lagu gaaray in la dilo wakaa markii gabar oo aan la dilaynin laguma fuulaan lahayn kulanajiis waa ciil uu qabay uu ku dul dhameystay markuu waliba si xun u yeelay inuu ka hadal siiyay isaga garaacay way u suurtoobay kuwa la lagu sii daayay una fuulay ogaada qolintu ku xidhay wuu qasbay waa la sawiruu ka sameeyay wax walba iyadoo la fuulayo wax walba ka sameeyay uu ku handaday xitaa wuxuu yiri hadal hadii kale kana media gelinayna jinniyo dhana lagu fiiriyay askarigu soo sheegay wuxuu yiri wax walba lagu fiiriyay way diiday marka ogaada gabadhiini waxa qaba gaal jecelow waxa qaba gabadhiini maxamed cabdullaahi farmaajo fahad yaasiin iyo yaasiin faray iyo kulanajiis afartaa qof kale la weydiin ma inta kalena yaa waay shaqaalihi waa aniga idii akhriyay shaqaalaha hadda idii akhrinay ya shaqaalihi hadda idii akhrinay soo arkay ya dadkan galiimiya durba iyo kaale shaqaalihi ya marka waxa weeyaan nimanka aan magacyadooda idin siiyay dawladdu waa inay si degdeg leh magaalada inay ku sii deyso maaha waa in mataqaanaa wadna qabad axmed aadan cali iyo iidow intoodaba oo mataqaanaa aniga halay waa diyaarada la soo diray anaa idin tusay inaan ka hadal siinayo ballan waay waan ka hadal siinaya shaki ma laha looga hadal siiyay naqaana dadkaas in laga hadal siiyo waay alleena ay meedka keenaan si degdeg leh meedka godku ku dahay in lala soo baxaa loo baahan yahay marka waxaan codsanaynaa maxamed xasan iyo macalin yuusuf si degdeg leh waa in nimankaasi oo mataqaanaa loo kululeeyaa inta aan ku adkayna waa inta haddaan idin sii sheegayaa nimankani geed looga gamban maayo ogaada yaa ugu dambi xun baan idin sheegayaa ninka kiiska ee si mara habaabinaya ama ninka kiiska qarinaya adaa ka dambi badan kan dilay adaa ka dambi badan waxaan kula talinayaa yaasiin faray xalayna waa la hadlay haddaad mujeedaa maantana waxaan soo qodoyaa god kala barina god kala soo baxaya waxaad yeelayaa siinow iyo luquntaada furo xalayna waa kuu sheegay haddana waa kugu celiyaa ariyaa luquntaada furo waad ku jirtaa shabagee ee runta sheeg wax walbaba go-aankii dadka gaaray sheeg wax walba sheeg haddaa sheeg weydid waan sheegoynaa wayna soo baxaysaa laakiinse taliyaha waxaanu caddaynaynaba yaasiin faray looma baahneen maxamed xasan iyo macalin yuusuf alla kululeeyo qabriga iyagaa yaqaana gabadha meesha ku jirtaa soo saaraan intaa ayaan warkaygii kusoo gabagabaynayaa caawo walaalayaal waxaan leenahay cadaaladdu ha shaqayso walaalayaal arrintu ma aha ikraan keliya filimo badan ayaa jira oo ay dadkan sameeyeen gruubkan aan magacaabayay maxamed xasan iyo macalin yuusuf dad badan ayay laayeen oo aan hayaa wararkooda kiiskan horta ha dhammaado annagu waxaa nala shaqaynaya dad iyaga la agta ka taagana nala shaqaynayo warka oo dhan noo wada keenaya intayna ogeen waa intaa weeyaan marka waxaan rabnaa inaan iraado dawladday yar baraarugo ash please waxa weeye arrintani waa sugan waa war sugan waa in maxamed xasan iyo macalin yuusuf saacadan la joogo godka meel la geliyaa ama ay qabriga na geeyaan labadaas wax u dhexeeya malaha kiis ah waxa la yiraahdaa igey ama adan ka dibgeeya saas waa sheekadu marka hadda saa ula socda gaal jeclow warka waa idin kala daadiyaa umaleeyaha marka marka waxaan rabnaa inaan iraahdo shacabkow ilaaliya qaar badan baan arkayaa miidiyaha hadlaya waxa weeye waa ruux bini aadan sidaadoo kala ah oo lagu camal falooday waa in qofkii dambiilaha la helaa nin islaama haddaa sheeganaysid isku xisho dad badan oo gar waaweyn oo waxaan arkayaa raba in nin dambiile ah inay mataqaanaa ay shafku ganacdaan waryaadaheen waxaan idiri tii ilaahayna waa jirtaa yaa ta kalena gabadhu reer la yaqaan ayay ka dhalatay waa gabar hawiya oo gaal jecel la aqoon uma lihidina waa la isbaranayaa barasho wanaagsan inay iraahdaan rabaa markaan saacadan inta hadlaysiin waxay isku bedeleen sheekadu wallaahi billaahi malaayiin anaa idin sheegaya ilaa aad zuushaan zuulow mataqaani aan dhacaysa zuulow meeluu gaal jecel ku nool yahay nin oer oo axsan ku noolaan ma inaa intaa iraahdaan rabaa maskaxda idin fura nin gaal jecela dhiig ma laha inuu heer oo xasan nin heer oo xasan u dhex taagnaado haddaanan kiiska la meelin si degdeg ah intaa ayaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal dhammaantiin buu idin salaamayaa waa saadaadihii siyaasadda guracan arrintani waa arrin cadcad qabrigu wuxuu yaalaa ee ikraan
beerta nabad sugidda ee deegaan leedhina balcad dugsiga tababarka halkaa ha laga raadiyo hal la raadiyo qabri baa ku jira waana gabadhii weeyaan waka inta ayaan warkaygii soo gabgabaynaya caawo waa inoo mar kale iyo mataqaanaa waxaan rabnaa inaan iraana cadaaladu ha shaqayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal wixii aan hadda idin tusaayey sawir waxaa idiin soo gelinayaa facebookgayga gala halkaasaad ku arki doontaan si fiican baad u akhrin doontaan halkaasaan hadda soo xirin doonaa halkaasaad ka arki doontaan dhammaantiin boodi salaami ha idin macaato hooye qaali warku waa sugan yahay dadka gabadhaada farmaajaa ku jira afarta go-aanka ka gaadha waa farmaajo nimra one waa isagaaba go-aaniyeba go-aanka gaadhay oo yiri inkaara taalle warkayga oo dhan ay dhegaysatee naga fura dhaqaajiya saasaa leeyihi gabadha dhaqaaji waa waxa uu ninkani ugu halgamay kiiska isagaa ku jira maxamed cabdullaahi farmaajo naftiisaa ku jira isagaa go-aamiyey waxaan ku yidhi iday wiilkan wacayslaan la hadlaa iday waxa waaye maanta haddaad dhiig leedahay daaha ka qaaday haddaad nin dhiig la tahay oo hawiynimada ay ku weyntahay waxaan ku idhi waa og yahay inuu farta ku fiiqo waaye yaasiin faray inuu farmaajo go-aamiyey waa ogyahay ma yidhaahdo isagaa go-aamiyey ها يا سفري وأنا ترى مدحوينا ننكاسع أمري إن ندلو ساعة الشيء قلنا كم جنبني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.